inaan u mahad celiyo cid walba oo ka qayb gasha oo ku bixisa maalkooda ay ugu horeeyaan ganacsatada Soomaaliyeed iyo qof walba oo qayb ka ah dhismaha dib u dhiska dalkiisa fakarkan isxilqaan wuxuu ka bilowday yaa dhisaya yaa mas'uuliyadda ka saaran tahay inuu dib dalkan u soo dhiso ma waxaad aan sugaynaa gacmo shisheeye ma waxaan sugaynaa dhaqaale shisheeye ma waxaan sugaynaa ilaa aan dhaqaale helno inta dalkeenu saan u burbursan yahay mise annagaas ku tashana annagaas xilqaana fakarkaasi wuxuu dhalay ficil oo aan maanta halkan u joogno ayaan dhaweydna aan u bilownay shaqada tiyaatarka haddana hadduu ilaahay yiraahdo aan ku xujinayno laabeeriga hadduu eebba yiraahdo iyo meelo badan iyo xarumo badan oo dawladdu leedahay iyo jidad iyo cisbitaallo iyo iskuullo hadduu ilaahay yiraahdo aan ku dhisanayno muruqeenna iyo maalkeenna aan isku tashanayno dalkan wuxuu ku dhismay dhaqaale Soomaaliyeed iyo dhidid badan oo la geliyay haddii aan doonayno inaan dib u dhisno dalkan intii iyo in ka badan inaan gelino weeye maxaa yeelay burbur yaa dalkan 30 sano iyo in ka badan iyo ku soo jiray oo gacmaheenan ku burburinay macnaheedu ma aha wax cusub inaan dhisayno wixii burburay yaan dib u dhisaynaa macnaheedu waxa weeye waa ka kharash badan tahay waxa weeye waa ka effort badan tahay waa ka juhdi badan tahay waana ka dulqaad badan tahay sidaas darteed waxaa la rabaa qof walba oo Soomaaliyeed gudaha iyo dibaddaba inaan u istaagno inaan dalkeena dib u soo dhisanno oo aan tusno caalamka Soomaali waxay ahaan jirtay iyo dalkan siduu u dhisnaa si ka wanaagsan inaan u dhisanno hadduu ilaahay yiraahdo dal walba dadkiisa dhista annagana dalkeena waa kan dal kale ma lihin annagaana dhisanayna insha Allah hadduu ilaahay yiraahdo sidii hore lagu yaqaanay si ka qurux badan annaga u dhisanayna hadduu ilaahay yiraahdo wassalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatuh